makiinadii u lahadlay wuxuu leeyahay sawir qaba ka haya hadii aad waxa aan ku faraya yeeli weydo Facebook ku faafinaya waalidka baa ku arki doona umadana ma fahmi doonto maxaad yeelaysa wuu xidhanaya garigeedii waa ka qufushayda waa nooc adoonsiya iyadiina way ogtahay xogteedii iyo sirteedii inuu hayo haddii amarkiisa ay qaadan weydo xataa xumaan hadduu ku samaynayo ay yeeli weydo halkaasuu soo dhigaya labana garanaya cidda soo dhigtay ila kayn baa lagu wada jiraa kayntaasaa la xulaya marka ceeb bay adduunyadii uga baxaysaa iyo ehelkeediiba wuxuu sababi karaa cadaawad iyo khatar badan iyo isdil wiilasha iyo gabdhaha qaarkood baa sawir halkaa ku kala qaata dad badan oo da'yara waalida waa laga yaabaa inaydaan ogeyne sidaasaa karkaarka lagu weydiiyaa ama diinta laga saara ama lagu adoonsadaa wuxuu sababi karaa in akhlaaqdu ay ka xumaato waxaynu aragnaa meelaha dadka had iyo jeer baraha bulshada ka soo baxa qaarkood baa sida ay magac u raadinayaan iyo muuqaal ama maal u raadinayaan isqaawiyada gabadh isqaawinaysa meelare waxay leedahay bahal waxa la ii sheer garaynayaa meeshan aan leeyahay oo lacag badan baa ku helaya marka waa inay qaylisaa ninku waa inuu isqaawiyaa gabadha waa inay isqaawisaa dad badan buu qofkani doonayaa meeshiisa soo galaya kadibna lacag baabu ku helaya wuxuu leeyahay magac baan ku helaya waan muuqanaya caan baan noqonaya mid la barto balaayo dhan khiyaanadii baa iyaduna ka mid ah qoyska oo maaragtay ay ku kala dhimanayaan qoyskii uu ku burburi karaa khiyaamadii dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxa uu keenayo dhibaatooyinka ka mid ah baraha bulshada lagu wada xidhiidhayo fudaysanaysaan xaalad idmaan marka uu gaadho qofku aad u badiyo inuu qofka caafimaadkiisa wuxuu dhimo hadday tahay maskaxda iyo haddii ay tahay xubnaha tarankaba markuu aad u isticmaalayo qofku bahalkaas waxa daraasadaha caafimaadku ay sheegayaan inuu waxyeeli karo qofka xinihiisa iyo xubnaha taranka waxa uu keenaa marka uu ilmuhu aad u isticmaalo dhaqdhaqaaqa yareeyo inuu miisaankiisu saa'id noqdo halkan uu dhiganaya xalawiyada iyo waxyaabo macaan leeyahay miyiga wax badan kuma hayne magaalooyinka marka la joogo halkan agtiisa talaajadii baa taala wax macmacaan buu halkan dhiganaya 5 saacadood buu kan u fadhiyaa xaggan wax uu ka cunaya xaggan wax uu ka cabaya ilmihii yaraaba yusbixu kawmatan min ash-shahm wuxuu marka daba noqonayaa kuus xeedha oo ka dhiba kari waaya lama ciyaaro dhaqdhaqaaq ma sameeyo kadibna caafimaadkiisa halkaas uu ku baabaaya macaan buu qaadaya qofku marka internet-ka soo shidan iyo mobile-ka soo shidan agtiisa uu dhigu seexdo waxa macruuf oo la ogsoon yahay khatar badan inuu ku keenayo raysiskiisaasi oo caafimaadkiisa uu khalkhal gelinayo dhibaatooyinkiisa waxa ka mid ah cusla ayuu keenaa cusla qofka waxyaabaha hadiya jeer daawo waxa ka mid ah inuu dadka la sheekaysto fikru maskaxdiisa isticmaalo bulshaawi noqdo dadka la qoslo jawigiisa wax iska bedelo marka nolosha ku sugan yahay gaarka ah agabka uu isticmaalayo ciduu la qoslayo ciduu la sheekaysanayo ciduu la faraxsan yahay in aanu jirin caalamka loo galaya khiyaaliya marka waxa laga yaabaa bilbihiyo ku soo eegaya dadkaysaayoo dadka aad u isticmaala baalkan xawilaan haddana ku soo eegaya waxa sidii baalkii Tom Jerry ka looran jiray meelaha ku mid screen-ka TV-ga ka biglayn jiray qofkii yaraaba noocaas u noqday indhihiisu way ku dhaafsan yihiin qaybuhu ku jira uu baxsan yahay waa aasaarta iyo raadka hadiya jeer uu leeyahay isticmaalka baraha bulshada marka ilaa 8 qodob baan sheego asbaabtiisa marka waxay ku soo ururaysaa taasina horta in laga warhayo mushkiladiisa waxa wax la daweeyaa markaad ogtahay cudurkan laakiin haddaanad ogeyn cudurkan inuu jiro ma daweyn karaysid marka qofka dhalinyaradii waa inuu ogaadaa mushkiladahan oo dhan uu bahalku leeyahay waalidku waa inuu ogaadaa shirkadaha baahinaya waa inuu ogaadaa madaxdu waa inuu ogaadaa kadibna waa la yiraahdaa maxaa xala sidee looga faa'iideysan karaa sharkiisana la isaga oodi karaa 12 arrimood baa ii muuqanaya mashaakilka casrigan ay joogno daayar inankiinantii u lahadlay wuxuu leeyahay sawir qaba ka haya hadii aad waxa aan ku faraya yeeli weydo Facebook ku faafinaya waalidka baa ku arki doona umadana ma fahmi doonto maxaad yeelaysa wuu xidhanaya garigeedii waa kan qufushayda waa nooc adoonsiya iyadiina way ogtahay xogteedii iyo sirteedii inuu hayo haddii amarkiisa ay qaadan weydo xataa xumaan hadduu ku samaynayo ay yeeli weydo halkaasuu soo dhigaya labana garanaya cidda soo dhigtay ila kayn baa lagu wada jiraa kayntaasaa la xulaya marka ceeb bay adduunyadii uga baxaysaa iyo ehelkeediiba wuxuu sababi karaa cadaawad iyo khatar badan iyo isdil wiilasha iyo gabdhaha qaarkood baa sawir halkaa ku kala qaata dad badan oo da'yara
waalida waa laga yaabaa inaydaan ogeyne sidaasaa karkaarka lagu weydiiyaa ama diinta laga saara ama lagu adoonsadaa wuxuu sababi karaa in akhlaaqdu ay ka xumaato waxaynu aragnaa meelaha dadka had iyo jeer baraha bulshada ka soo baxa qaarkood baa sida ay magac u raadinayaan iyo muuqaal ama maal u raadinayaan isqaawiyada gabadh isqaawinaysa meel arag waxay leedahay waxa la ii sheer garaynayaa meeshan aan leeyahay oo lacag badan baa ku helaya marka waa inay qaylisaa ninku waa inuu isqaawiyaa gabadha waa inay isqaawisaa dad badan buu qofkani doonayaa meeshiisa soo galaya kadibna lacag baabu ku helayaa wuxuu leeyahay magac baan ku helayaa waan muuqanayaa caan baan noqonayaa mid la barto balaayo dhan khiyaanadii baa iyaduna ka mid ah qoyska oo maaragtay ay ku kala dhimanayaan qoyskii oo ku burburi karaa khiyaamadii dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxa uu keenayo dhibaatooyinka ka mid ah baraha bulshada lagu wada xidhiidhayo fudaysanaysaan xaalatan idmaan marka uu gaadho qofku aad u badiyo inuu qofka caafimaadkiisa wuxu dhibo hadday tahay maskaxda iyo haddii ay tahay xubnaha tarankaba markuu aad u isticmaalayo qofku bahalkaas waxa daraasadaha caafimaadku ay sheegayaan inuu waxyeeli karo qofka xinihiisa iyo xubnaha taranka waxa uu keenaa marka ilmuhu aad u isticmaalo dhaqdhaqaaqa yareeyo inuu miisaankiisu saa'id noqdo halkan uu dhiganaya xalawiyad iyo waxyaab macalin meelaha miyiga wax badan kuma hayna magaalooyinka marka la joogo halkan agtiisa talaajadii baa taala wax macmacaan buu halkan dhiganaya 5 saacadood buu kanu fadhiya xaggana wax uu ka cunaya xaggana wax uu ka cabaya ilmihii yaraaba yusbixu kawmatan min ash-shahm wuxuu marka daba noqonaya kuus xeedha oo ka dhiban kari waaya lama ciyaaro dhaqdhaqaaq ma sameeyo kadibna caafimaadkiisa halkaas uu ku baabaaya macaan buu qaadaya qofku marka internetka soo shidan iyo mobilka soo shidan agtiisa uu dhigu seexdo waxa macruuf oo la ogsoon yahay khatar badan inuu ku keenayo raysiskiisaasi oo caafimaadkiisa uu khalkhal gelinayo dhibaatooyinkiisa waxa kamid ah cusla ayuu keenaa cusla qofka waxyaabaha hadiya jeer daawo waxa kamid ah inuu dadka la sheekaysto fikru maskaxdiisa isticmaalo bulshaawi noqdo dadka la qoslo jawigiisa wax iska bedelo marka nolosha ku sugan yahay gaarka ah agabka uu isticmaalayo ciduu la qoslayo ciduu la sheekaysanayo ciduu la faraxsan yahay inaanu jirin caalam kale uu galaya khiyaaliya marka waxa laga yaabaa ilmihiyo ku soo eegaya dadkaysaa dadka aad u isticmaala baalkan xawilan hadana ku soo eegaya waxa sidii baalkii Tom Jerry ka loo oran jiray meelaha mid screen-ka TV-ga ka biglayn jiray qofkii yaraaba noocaas u noqday indhihiisu way ku dhaafsan yihiin qaybuhu ku jira uu baxsan yahay waa aafaarta iyo raadka hadiya jeer uu leeyahay isticmaalka baraha bulshada marka ilaa 8 qodob baan sheego asbaabtiisa marka waxay ku soo ururaysaa taasina horta in laga warhayo mushkiladiisa waxa wax la daweeyaa marka aad ogtahay cudurka laakiin haddaanad ogeyn cudurkan inuu jiro ma daweyn karays marka qofka dhalinyaradii waa inuu ogaadaa mushkiladahan oo dhan uu bahalku leeyahay waalidku waa inuu ogaadaa shirkadaha baahinaya waa inuu ogaadaa madaxdu waa inay ogaadaa kadibna waa la yiraahdaa maxaa xala sidee looga faa'iideysan karaa sharkiisana la isaga oodi karaa 12 arrimood baa ii muuqanaya mashaakilka casrigan ay joogno